qodobka shilin Soomaaliga dadkii ka hadlay waa sax waa khatar Puntland in hantideedii ay electronic ku jirto waliba ayaamaha kan wadaca alle waxa soo baxay dagaalkii dhulka aan naqaanay dagaal la yiraahdo dagaalka maalin dhow waxa ka dhacay Soomaaliya qorsheyn adduunka ya hal marba waxa hay la xaday systemkii softwareki cusbataaladii Yurub diyaaradihii xataa dukaamadii wax laga iibsanayay hal mar cirka dhulka istaagay horta waa khatar soo socota wax badan baa la fududeeyay laakiin lacagtan ku wada jirta bahash maxaa la yiraahdaa telefoon ku jirta anigu waxaan tagay mar aan deegaamo badan booqanayay dad lacag haysta oo waxba gadan karin maxaa yeelay meesha hadda dawladda wixii khuseeyay la weydiin lahaa madaxweynuhu ateenaan rabnaa bay yiraahdeen war ateenada maxaa ka galaa golis weeye waxay dhahdeen wixii lacagaha halka lagu riday annaga waxba kala gadan karno shaha ma soo karno horta arrintaas waa khatar jirta laakiin dawladda Puntland khatartaas way u bareertay inay tiraahdo shilin Soomaaliga sidoo ku jiray lagu socon karo shilin Soomaaliga waxaan ugu nimid marka aniga xilka qabanay 2019 marka aan joojinayno wuxuu ku socday 26 wuxuu ku socday 60 halkii dollar waxa noo muuqatay dadkii hal mar in lacagtoodii intay guurto hantidoodii warqado loo dhiibo hadhoon ay waxba u goyn karin waxa ogaataan qaarkiin waxa laga yaabaa waa gartiin baahida un ba ka tarjumaysaa laakiin dalalka arkay khatartaas oo kale oo lacagtoodii hakiyay oo dollar u guuray dalal badan oo dhowr jira Afrika Zimbabwe waa ka mid ahay Latin America laba wadan baa ka ahay dalka Argentina baa hadda qarka u saaran inuu dollar qaato sababta keenaysa waxa way markay awoodda inflation-ka aadan xakameyn karin dadka hantidooda ina baartay ilaalisid weey dawladda Puntland hadda waxa u yaala 7 bilyan wasiirkii maaliyadda waa jooga markaasna bankigu joogay 7 bilyan dollar lacag u dhiganta oo waraaqa ah oo shilin Soomaaliya noo kaydsanad oo meelaan geena garan laana dawladda dhaxoo naga bedesha oo mid kale noogu bedeshana ma hayno hadda idinka inay deyn lahayn hadda wax ma iibsan karno iyo cash ma haysanaa leedihiin laakiin cayr baa noqon lahayd markaa